Soomaaliya lambar 4 waa taas waa wareey waa socota baad dagaalkii bilowday galabta ayaa ilaa iyo caawa soo gaaray waxaana furmay furumo cusub oo dagaal ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo fariiso ka sameystay degmada Hodan qaasatan madaxtooyadii hore Cabdi Qaasin ayaa halkaasi waxa ay ku soo weerareen cutubyo ka tirsan ciidanka filla Soomaaliya kuwaas oo lagu magacaabo Duufaan iyo Gorgor hase yeeshee dharbaxsho kulul ay halkaasi kala kulmeen waxaana raacdinkoodii la gaarsiiyay ilaa ay isgooska dabka hadaba mucaaradka ayaa bilowga dagaalka ku gacan sareeya waxayna taakula ciidan ka heleen ciidan uu hogaaminayo gudoomiyihii degmada Dayniile Jacfar kaas oo la wareegay taalada sayidka hadaba xogahaas iyo macluumaad kale ayaan kula wadaagaya halka ay xaaladdu marayso hoobiyaal iyo sidoo kale madaafiic la sheegay inay ku dhaceen filla Soomaaliya maxaa laga filan karaa ciidanka degan Kaaraan ee mucaaradka tallaabo nooca ay qaadi karaan hadaba xogahaas iyo xaaladii ugu dambeeyay ee Muqdisho muuqaalo laga soo duubay ayaan kula wadaagi doonaa hase yeeshee inta aanu guda galin faldan markii hore muuqaalka la garay si uu faafo una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed ayna kaga digtoonaadaan qataraha ku soo wajahan sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe dhahanaya gambaleelkana u furanaya xaalad dagaal midii ugu cusleed ayaa ka taagan caawa magaalada Muqdisho dhinac walba oo magaalada kamida waxa la maqlayaa rasaas xoogan ama rasaas nool oo la isweydaarsanayo door furan oo dagaal ayaa waxa ay ka qarxeen degmooyinka kala ah Kaaraan Hodan iyo sidoo kale degmada Waabari hadaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka soo guuray gurigiisii hore soona degay madaxtooyadii Cabdi Qaasin ayaa la soo weeraray sidan ay ahayd xaaladda lambar 4 Cabdi Qaasin tarabuunka iyo aaga u dhow oo idil bal hadaba aynu isla daawano muuqaal laga soo duubay شلر مقالة واتها صحيح وحالك واساس بالجوجة iyo aragtiyada iyo waxa dhacaya iyo ni oo muxaafada ee ku gaadi ay leedahay wala qabniga leedahay wala qabana ma wala qabana si kala mare Soomaaliya lambar 4 waa taas waa wareey waa socota baad dadka marna waa si yaacan marna waa soo yaacan caaw marka magaalada waa noocaas habad waa socota wali cilla jabiyo gooniya anagu hadda marayno laakiin de waa la sirfaash waa wareey waa socda walaah بالسنك مقدارك بلا بتعاتر نيو سان هره uga sugayna waxaan ka baqaynaa in gadaal ka bilaabato dabkana ka socotaa ya dabka ka socotaa meel aysan ka socon ma lahan waa arkeena meesha ugu dambeeyay oo finalka ah oo xabadu gaarto naga waxa dan noo ah in qolka raysmiya maya inuu farmaajo baxada noo ah labada Facebook noo kala qad saacido labada Facebook noo kala qad والله ولا سكريده سيف عالي سكريده والله لا هو وري سرعه بالك عار مش كعرني ارك عار ماشنيه ني واحد ساكن دشيكو يا Soomaaliya halka xabadu waa ka socota waa isgooskii lambar 4 dhanka Cabdi Qaasin xabadu ka socota isgooskii lambar 4 runtii hadda u jeedna argadii ay muuqata hadaan soo zoom gareeyo argada waa taas lambar 4 halkaas xabadu ka socota caawa waxaan rajaynaynaa in wax waliba ay noqdaan wax iska caadiya de qorsho wuxuu ah in la soo qabto musharaxiinta laakiin way isdifaacayaan xasan sheekh waa isdifaacay dhankan Cabdiraxmaan iyo saaxiibada isdifaacaya marka bal waa arkayna meesha dawladnimada macnaheedu ay gaartay iyo halka ugu dambeysay ee farmaajo uu gaarsiiyay dawladnimada waxaas dhacaya waa xabad wali wala dagaalaya si fiican baa la isugu wadaa hadii meesha la soo galo inta ka baxnaa meel ka baxna ma naqana hadii anaga meesha hadda joogno meesha hadda anaga joogno hadii la soo galo aynaw de luuqa u sakeekan waa fursad haysta fursad haysta waa wareey wax weyn dhacay waa wareey sabana dhacay ciyaar عملوا والله يا عمر كان والله نيهو كوني بقول قف قداونا سمح الله هذا محافظه كل مدى يجيبوا سوق قبلنا عبد الرحمن شكور ومحافظ الى جوجا عبد الرحمن شكور سوق قبلنا ولي سو محافظ الى جوجا انا waxaan leeyahay ninka fi difaacaya والله si fiican isugu dhacda baasha sabana afkal iska galiyay
xaalkuma dadku way soo laabteen aad loo soo yaaca marka xaalkuma fiicna مش محمد raadada dhawac jideebe صح او دواع balaayag xagga qof la jidaya wala dadka madax adeegin inta xabada meesha ka soo bisinkii burda intay daawanaysa runtii ila socota halka aan joogo waa lambar 4 waxaan leeyahay saxaabadii daawanaya runtii dhaqankii iyo adkaysigii iyo awoodii la sheeganayo halkaas dalka ka maraysa marka Soomaaliyeey waa aragtaan dalka meesha maray waa aragtaan waa wax waa la geeyay dalka meesha waa la geeyay halkaas dalka waa la geeyay marka Soomaaliyeey waxaan leeyahay dalka iyo dadka Soomaalida loo kaco 7 in caawa afka la iska geliyaa wax runtii aad u dhib badan waaye dadku waa kala cararayaan wallahi bisinkii burda in xabad 7 afka la iska geliyaa caawa lambar 4 oo nabad ahayd oo si fiican la isugu tumo والله waxa caaw meesha ka dhacayo wax la qaadan kara maahan 2,000 qof way ordayaan 2,000 qof way daawanayaan 2,000 qofna halkaan ay ku ordayeen 2,000 qofna waa daawanayaan marka Soomaaliyeey inta kacdaan dadkiina u kaca ninkaas farmaajo wax loo sheegay جوجو horta aan fahamno qolka bacda موتا مردي دي وردات كدي وردات كدي بدناي دي والله يا عدي بسم الله الرحمن الرحيم دي دتكن يا عام انا تلك لما دي بلاش نقول يا انا بحصل واكل ما البيك بسم الله الرحمن الرحيم سنايه ninka furunta jooga aniga wallahi billahi talaa xabada u hada furmo joogtay benska furunta jooga ninkaas ay la jooga ninkaas waa waray warsama dhacsaban bismi haddaba daawadayaal muuqaaladani waxa ay muujinayaan sida xaaladda magaaladu ay tahay dhanka kale dabka waxa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka kaas uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Daynila Jacfar kaas oo ay isku heeb yihiin Xasan Cali Khayre haddaba mucaaradka ayaa markan la soo baxay in ay tallaabo ciidan qaadaan maadaama shir jaraa'id iyo warqad ay soo saaraan ay wax ku qaban waayeen farmaajana uu ku baajin waayay muddo kordhiskiisa xogaha iyo macluumaadka ka soo kordha halkan ay kugula wadaagi doona si xaaladda magaalada aad ula socotid fadlan subscribe saaro gambaleel kana u furo inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno sida ay nabadgelyo mahadsanidin